Asalaamu calaykum qaybtii ugu dambeysay sanadkan decorationkii rabadaanta kusoo dhawaada kartoonkaas ballaaran waa kartoon caadi waxaa laga sameyneynaa insha allah rabadaan calendar baan ka sameyneynaa waraaqihii kartoomada yaryar ee xagga hoose kaga jira waraaqaha suuliga ayaanu soo ururinay markan keligay baa sameynaya caruurtii igulama jiraan waayo ma rabo inaan ogaado waxyaabaha ku dhex jira inay arkaan iyagaan doonaya inay hadhow uga noqoto si kadis ah ama surprise ah markaa aniga ayaa sameynaya waraaqaha waxaad u baahan tahay ku dhex jira suuliga kuwooda dhammaada karaatoonta yaryar waxaad u baahan tahay sidoo kale warqadaas dhalaalaysa ama foolyada dhalaalaysa oo dahabi ah ama midabkaad adigu doonay sidaad jeceshahay baad soo qaadanaysaa kartoonkan iminka ku dul dhejin doonaa foolyada waan kusoo dhejiyey foolyadii haddana waraaqihii waxaan ka wadaa kartoonadii yaryaraa ee suuliga ee sidaas wareega u ahaa ma garanayo af soomaali wax lagu yidhaahdo roole ma garanayo ayaa ku dul dhedhejinayaa si ay igu yeeshaan meelo badan oo ma garanaysa hadhow aan wax ku guri karo saasaad ugu soo dhejinaysaa kartoonkiiyo dhalaalkii yaraa hoosta kuugu leh ayaad kusoo dhejinaysaa xabagtaad ku wareejinaysaa xabagta markan aan u isticmaalaya waxa weeyaan xabagtii kululayd sababtaan ugu isticmaalayaana waa si aanay u fuqfuqin oo xabagta yaree kale hadhow markaan wax ku rido ee cuslaato way la go'i kartaa marka xabagtan adag ma garanaysaa hot glue la yidhaahdo ama xabagtan kulul ayaan ku sameynayaa taasaa ugu adag oo ii xejinaysa saasaan markaa ku doortay saasaad ugu soo wada dhedhejinaysaa 30 xabo oo bahalahaasabaad saa ugu wadaysaa anigu 5 baan ugu dhejiyey 30 xabaan markaa ku dhejinayaa waxa aan doonayaa aan ma garanaysaa ku dhex guro waxyaabo yaryar oo macmacaan ah oo ama lagu ciyaaro ama wuxuun oo markaa caruurta aan kaga farxiyo maalin walba oo rabadaanta ka mid ah saasaan ugu soo wada dhejiyey kulligii saasay noqotay 30kii xabo markaan kusoo dhejiyey marka kartoonka hareeraha ayaan ka jari doonaa waan isku soo simayaa si iyaga ay karaatoonta yarar u leekaato taas baan marka hore waxaan soo qaatay foolyadii dhalaalaysay si leeg iyaga joogooda waraaqahan maad aragtay kartoomadan yaryar joogooda leeg ayaan usoo jaray oo iyagan ku qiyaasay marka waxaan doonaynaa sidaa ugu wareejiyo si ay dhalaal qurux badan igu noqdaan foolyadan ku wareejinayaa imika waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan saasaan ugu dhejiyey foolyadu iyadaa xabag hoosta ku wadata markaa way iska qabsanaysaa inta hoose ayaad ka yara jiidaysaa warqada markaa intii xabagta ahayd baa soo baxaysa sidaasay kuugu qabsanaysaa markiiba dhag uma baahnid inaad wax kale ku dul dhejisayo waxaa gacantunbaad raacinaysaa ta kalena waad jiidaysaa tanna gacanta ayaad raacinaysaa si aanay markaa meel hawadu gashay iyo wax buurbuur ah kaaga yeelanin ayuunbaad ka ilaalinaysaa sidaasaynu ku wadaynaa waan ku wareejinaynaa ila socda markaan saa ugu wareejiyo insha allah ee aan ku dhammeeyo مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان 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 markaan ku wada wareejiyey saasay soo baxday waxaan doonayay uga dan lahaa inay hareeruhu saa u dhalaalaan oo ay qurux noqdaan si ay dayaxa iyo ma garanaysa faynuusyada iyo waxaa yarar iigu shabahaan sidaasay noqotay meelaha yarar ee sidaa u kala go-an ee aan wax ku guri karo waxaan soo qaadayaa imika waxyaabihii yareeraa nacnacyadii iyo wixii aan ugu talagalay inaan ku ridrido waxaasaan imika ku guraynaa markaan ku guro oo 30 xabo anigaa soo kala faqfaqay dhowr nooc oo kala duwan weeyaan waayo waxaan siri nooc keliya ama 2 nooc oo keliya caajis bay ku yara noqonaysaa bahalaha yarar ee la buufiyo oo kale ku jira maxay ahaydey xilliyada kulaylaha oo kale la buufiyo oo
tole maxaynu u naqaanaa af soomaali waryaa ilaaha yaqaana bal idinkaa soo sheegi doona anigaasaa ugu guray maxay ahayde mid walba wax yaroo laba waxoo gooni ah ayaan ku riday haddaad 3 caruur haysato 3 waxbaad ku ridaysaa haddaad 2 haysato 2 waxoo kala duwan adigu sidaa doontabaad oo isticmaalaysaa muhiimadu waxa weeyaan inay sidaa kuugu kala noqoto meelo kala xidhxidhan oo ma garanaysa khaanad yar ah oo maalin walba aad khaanad furi karto kadibna aad waxa ku jira kasoo saari karto sidoo kale waxaan doonayaa inaan ku rido magacyada ilaahay oo ma garanaysaa si halka caruurtu maalmahaas uga bartaan ama 2 magac ama 3 magac intaan kasoo saarno xagga kombiyuutarkan iminka ku cararay magacyadii iyo tirooyinkii aan rabay inaan ku duldhajiyo ayaan kasoo baadhayaa dhinacaas iyo kombiyuutarka kadib hadhow markaan soo saaro ayaan isku soo noqonaynaa oo ma garanaysaa aan ku duldhajin markaan la soo baxay wixii aan kombiyuutarka uga baahnaa kuwaas aan soo doortay markii ugu dambeysay waxaan soo saaray oo kale masaajida Ramadaan Kariim iyo waxaas waraaqahaas ayaan soo koobiyay kasoo saaray kombiyuutarka waxaan doonay inaan ku duldhajiyo oo aan xagga sare uga dhigo dabool oo kale kadibna aan tirada ku sii duldhajiyo marka maalin walba mid aan daloolino oo aan furno sidaas ay noqon doontaa waxaan soo jarjarayaa imka waraaqaha inta cadcad ee hareeraha ayaan ka soo jarayaa waan isku simayaa si sawirku kaliya iigu soo baxo taas waan kala jarayaa si labada dhinac ay iigu soo baxdo dee la socod wanaagsan waa idinkiiga soo codsaday inaan codka ku soo duubo maadaama aan doorkii hore videogii kan ka horeeyay muusikaliya ta ka soo dhigay waxay ku tiraahdeen waxaanu ku fahmi karnaa codka noo soo raaci waaniga soo xiiqay waxaan ku yiri xilisa soo saaray halkaas labada dhinac baan saarayaa labada minaaradood ama masaajid tan halka dhaxan saarayaa taasna Ramadaan Kariim ku qoran tahayna halka saraan saaraya inkastoo ay hadhow muuqan doonin oo aan ku duldhajin doono ma garanaysaa lambarada hareerihii ayaan imikana kaga dhajinayaa fooliyadii dhalaalaysay intii hadhay ayaan hareeraha kaga dhajinayaa imika waxa laga yaabaa inaydan saani u yara arkayn laakiin marka aan ku dhameeyo oo aan ku dhajiyo ayaad si fiican u arki doontaan afarta dhinac ayaan kaga wareejinayaa fooliyada dhalaalaysa dabadeetana sidaasoo kale aan ugu adkaynayaa si ay dabool ugu noqoto marhaban bika ya ramadaan marhab ya ramadaan ya marhaba bika ya ramadaan marhab ya ramadaan wa ya marhaban bika ya ramadaan marhab ya ramadaan wa ya marhaba bika ya ramadaan markan hareerihii oo dhan kaga soo dhajiyay sidaasay noqotay iminka kaliya ta waxay noo hadhay inaan lambaradii ku dul dhajino 1 ilaa 30 khasab maaha si isugu xigxigtay inaan ugu dhajino sidii hadba ay noqoto ayaan ta soo jarjarno ku dul dhajinaynaa markaas ugu dambayn Ramadaantii wixii decorationka aan sameynay saas u soo baxay ka lambaradiina waan ku dul dhajiyay sidaasay ku soo baxday maalinba xabad baa la daloolinayaa wixii ilaahay uga soo saaraa bay halkaa kala soo baxayaan sidaa iyo waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak ilaahay ajarkeena ha aqbalo dambigeenna ha dhaafo caafimaad ha inoogu dhameeyo insha Allah